waa subax hore goobtuna waa magaalada Kismaayo sanadkuna waa 1982 waxaa si kadisa magaalada kormeer ugu tagay madaxweynihii dalka Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Bare kaasoo la ogsoon yahay heerka awoodeed ee hogaaminta markii uu tagay magaalada Kismaayo madaxdii degmada iyo kuwii gobolkuba waa ay kala carareen maadaama Siyaad Bare uu ahaa nin aad u adag kadib waxaa la geeyay oo lagu shiray hotel Wamo oo markaa loo yaqaanay dalxiiska Wamo iswaraysi ka bacdi iyo warbixintii madaxda gobolka ayaa mar qura taliyihii ciidanka booliiska degmada Kismaayo oo la oran jiray Cornel Adam Forfor oo la dhashay Janaal Madukade ayaa waxa uu markaasi ka sharqamiyay madaxweynahana u sheegay in wiil yar oo 15 jir ah uu toorey ama mindi ku dhuftay nin gaal ah oo injineer ahaa waliba ka shaqeynayay shirkadii Texaco oo markaa shidaal ka baarisay deegaanka Gudhaa Bandar Salaam oo Kismaayo u jirta 50 kiiloomitir madaxdii gobolka ayaa hadalka dhankoodu qaatay waxayna yiraahdeen tii u darneed ayaan ka ilaawnay jaal madaxweyne oo waxa jirtay arinta waana xirnay wiilkii yaraa shirkadiina dhaawacii ayay u doolisay Nairobi si loogu soo daaweeyo Siyaad Bare ayaa hadalkii qabsaday wuxuu su'aalay yaa idinku yiri caruur ayaa la xiraa mase isweydiiseen waxa isku geeyay wiilka yar iyo ninka gaalka ah waxay yiraahdeen maya jaal madaxweyne ma aanu weydiinin isla markiiba Siyaad Bare wuxuu amray in la soo daayo wiilkii yaraa loona keeno si uu u wareysto madaxdii gobolkane wuxuu ku amray in meesheeda uu joogaan inta uu ka wareysanayo wiilka waxaa loo keenay inankii yaraa madaxweynihii ayaa weydiiyay sababta wiilka yar uu u dhaawacay ninka gaalka ah wuxuuna ku jawaabay adeer aniga oo geelaygii la jooga ayuu ii yimid intuu warqad ii saaray cawradiisa gacantan ii haatiyay anna waan xanaaqay toorey ayaan ku dhuftay cawradiisa iyo calooshiisaba waan ka dhaawacay oo been ma kuu sheegayo ee aamin adeer wiilkii yaraa ayaa sidaas ku jawaabay Siyaad Bare wuxuu yiri adeer run inaad ii sheegayso shaki iigama jiro waad ku soo bisay waayo inuu xirada uu degan yahay dibadda uga baxo isagoo boolis la socon ma ahayn oo isaga yaa isdilay adiguna wax dambi ah ma lihid hadda kadib wixii sidoo kale dhaqma dil fasax ayaad u tahay inta kadib wuxuu amray Siyaad Bare in taliyihii saadka ee ciidanka uu wiilka qaado raashin siiyo waliba geeyo halkii laga soo waday oo ku dhaweyd deegaanka Gudhaa waxaa isna shirki yimid oo arankii maqlay ninkii Mareykanka oo madax ka ahaa shirkadii fulinaysay markii la eego adeegii halka loo joogay wuxuu doonayay in uu helo raaligelin ka timaado madaxweynaha maadaama mid ka mid ah shaqaalihiisii Soomaaliya lagu dhaawacay salaan iyo iswaraysi kadib hadal gaaban ayuu madaxweyne Siyaad Bare yiri imaqal wadankan Soomaaliya ayaa la yiraahdaa dadkaanne waxa la yiraahdaa Soomaali lamid ma aha Afrikaankii aad arki jirteen waxaan kugula talinayaa inaadan dibadda u bixin xaruntiinana aad ka tagin haddaad baxaysaan inaad wadataan ilaalo ciidan la'aan haddaad baxdaan idinka isdisheen ninkii wiilka yar uu dhaawacayne ogow isaga ayaa isdilay muxuu ka doona baadiyaha iyo caruurta geelooda ilaashanaya hadalkaas qiimaha badan wuxuu ka yimid Siyaad Bare haddaba waxaan jeclaan lahayn inaan halkan idinkugu soo gudbino qaar ka mid ah waxqabadkii Siyaad Bare oo aan halkan lagu soo koobi karin laakiin xogaha ayaan ka soo qaadanaynaa kow jaalisiyaad hortii dal dhisan ma jirin waxaa jiray heekal dowladnimo oo kaliya wuxuu dhisay dowlad xoog badan oo lahayd heybad ee Afrika ku hogaaminaysay saddex dhaqaaluhu wuxuu gaaray halkii ugu sareysay ebed raashin bilaash ah guryo bilaash ah oo lagu cabirayo iyo waliba dhaqan dhismo dowlad ah afar wuxuu hormariyay tacliinta iyo horumarka reer miyiga oo idil lix wuxuu dhisay kaabayaasha dhaqaalaha dekedaha garoomada diyaaradaha iyo wadooyinka iyo wixii la mid ah toddoba wuxuu dhisay 2550 kiiloomitir oo wada dhirirkeedu yahay Kismaayo ilaa iyo Xamar 500 kiiloomitir Xamar ilaa iyo Baydhabo 250 kiiloomitir Xamar ilaa iyo Garowe 950 kiiloomitir Garowe ilaa iyo Boosaaso 480 kiiloomitir Garowe ilaa iyo Berbero 514 kiiloomitir 8 wuxuu dhisay 60 mashruuc oo biyo xiran ah 9 wuxuu inagu daray jaamacadda Carabta 10 in ka badan 30 warshadood ayuu dalka ka hirgeliyay 11 wuxuu dhisay 13 buundo
13 wuxuu dejiyey manhaj adag oo waxbarasho lacag la'aan ah dugsi hoose ilaa iyo jaamacad heerka digriga oo jaamacadaas oo ay ka baxeen siyaasiyiintii ugu waaweynaa Soomaaliya ee maanta jooga mar walbana aflagaadeynaya dowladii wax soo bartay ee ninkii wax soo baray ee ahaa Siyaad Bare. Dhismaha garoomada isboortiga, isbitaalada, hoteelada iyo dhammaan dabaqyada ilaa iyo hadda aan burburin oo dalka ku yaala gaar ahaan kuwa ugu caansan ee caasimadda Muqdisho. Siyaad Barow waxaad naga mudneed nagama helin. waxaad ka dhalatay dal meeshii taalo lagaaga dhisi lahaa ceeb iyo aflagaado dhabarka kuu saara, balse waxaa jira dad qaar oo ogsoon waxqabadkaagii dalka iyo sidii aad u dhistay.